kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaa haddaba sida aad la socotaan Hormuz maanta mar kale ayay Iiraan ku dhawaaqday inay xirtay asbaabo kala duwan oo dhacay aawadeed Mareykanka oo ciidan soo dhoobay iyo maraakiib meel ku dhow Hormuz isagoo qashqashaad ku bilaabay iyo dhibaatayn maraakiibta Iiraan u socota iyo kuwa ka yimaada Israa'iil oo duqeymo ka fulisay Lubnaan xabad joojintii baalmartay waxa soo dhan oo isbiirsaday ayay Iiraan go'aan degdeg ah qaadatay wax soo gudbi karo maleetir dawladii marka waa qayliyeen war Iiraan ay sidee rabtaa hadda marka caawa waxay leeyihiin lacag ninkii bixiya oo aanu u qorsheynay ayaa maray macnaha adduunkii oo dhan isku xirmaaya leeyahay shidaal la'aan dhacaysa waa adduunkii oo dhan gaajo ka dhacaysa wixii oo dhan isku xirmaaya at least xal kala keena xalan kanadeen lacag waaliya dhiibay waa gudbaysa haddii kale meeshaada fadhinaysa haddaba marka aad tusoo wararkii ugu dambeeyay arikaas telefishinka CNN ayaa laga soo xigtay warbixin isagoo soo xiganaya mas'uuliyiin Iiraaniyiin ah waxa uu sheegay in gudbitaanka muhiimadiisu ay tahay oo qofka gudbaya oo waa inuu bixiyaa rusum ama canshuur inuu bixiyo waayo haddaba shabakada CNN ee dalka Mareykanka oo soo xiganaysa mas'uuliyiin Iiraaniyiin ayaa sheegtay in markabka loo fasaxayo halkaas waa inuu iska bixiyaa rusumka ama waxyaabaha loogu talagalay in uu markaa bixiyo waaye marka sheekadu halkaas joogtaa qofkii xisaabtiisa wata ayaa gudbaya waaye waa controlina meeshaan macallinka weyn meeshaada fadhi markabka weyn Gerald Ford ayay yiraahdeen maanta wuxuu soo degay uu yimid badda cas jugta laga galiyay dhawaan isagoo dhaawacan oo Greega taga halkaas lagu soo daweeyay waa la soo habeeyay hadda uu soo laabtay alaabtii jugta looga galiyay ma dhamaad waa taalaan haddii la isku bilaabo xabad joojinta wiiga ka dhiman toddobaad uu baxay toddobaadkaas si fiican la isu garaaci doonaa halkaas uu maraa haddaba maanta marka waxaa dhacay laba markab oo calanka Hindiya wata oo shidaal ka soo qaaday Ciraaq oo meesha inay maraan rabay oo markii hore la yiri tasriixa la sii ogolaashiyihii inay mari karaan markii waa furna ee Iiraan tiri hal la maro ay tiri markaas soo baxeen markii ay meesha soo gaareen haddana qabti kala ku dhacday waa xireenyaha ku dhacday haddana way malaysa waayeen anaga waa xogaa iska daba wareeg sameeyeen laabta leer way iska daba wareegeen laabta way iska daba wareegeen doomo dheereeyay inta loo soo diraa rasaas lagu furay ayagoo kala wareega la dhihin ayay reefis qaateen kadaale u baxeen waa carareen hawshaas halkaas ee marka dawladii Hindiya ayaa carootay marka maxaa ugu dhedheelaysaa Iiraan marka dawladda Hindiya waxay u yeertay safiirka Iiraan u fadhiya Hindiya si uu arrinka uga soo jawaabo haddaba marka aan tuso wararkii ugu dambeeyay ee arrinka laga qoray haddaba waxaa la sheegayaa Hindiya waxay u yeertay safiirka Iiraan wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya ayaa galabta u yeertay safiirka Iiraan u fadhiya dalkeeda arrin ku saabsan rasaas lagu furay laba markab oo watay calanka Hindiya iyagoo marayay Hormuz maanta in markaa su'aalo laga weydiinayo officer su'aalaha la weydiiyo marka sidee wax u jiraan leenmayo annagu adika rag isku dhadhow saaxiibaayna sidee wax u jiraan may qabtaaydu ku dhacdaa leeyahay bafaad marka hawsha wax kale weyn ma jiraan xisaabta kaliya bixinaysa waa gudbaysan Mareykanka halkaas u fadhiya markii Hormuz la dhaafo jooga muxuu leeyahay ninkii Iiraan lacag soo siiyo meeshaan bambaray meesha waa imtixaanka ka taagan meesha carabtii ayaaban waxa go'doonsan oo meeshoodii la isku haysto waa carabtii waa la yaabaya meeshaan Mareykanka lacag uu jooga wuxuu leeyahay isaguna markab sii kara cashuur ma jirto Iiraan cida cashuur bixin ma gudbi karto marka meeshaas mushkilad weyn ka taagan xaalku marka waa loo yaabaa leey
waxyaabaha kale ee cusub waxaa ka mid ah caawa makhribkii ayay iiraan daroon isku garaacday goob ay joogeen kooxo kurdiyiin ah gudaha dalka ciraaq haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyey ciidanka ilaalada kacaanka iiraan waxay sheegeen inay weerar ku qaadeen saldhigyo ay lahaayeen kurdiyiinta ciraaq weerarkan iiraan ay qaaday ayaa waxaa lagu fuliyey diyaarado dronis ah waxaana lala beegsaday saldhigyada kooxaha kurdiyiinta ay ku tilmaantay iiraan argagixiso gooni ugoosad ah oo markaa laba goobood oo deegaanka kurdistaan ciraaq ku yaala ayaa lagu beegsaday oo lagu weeraray halkaas ayaa markaa lagu weeraray sida la leeyahay sheekadaasu markaa iyaduna halkaasay maraysaa wararka kale ee soo kordhay waxaa ka mid ah nimankiisay wax u qarsanayeen yahuudi waxay leeyihiin hadda 1,000 guri oo talaabiib kaliya magaalooyinkii kala jugta laga geliyay iska dhaaf talaabiib kaliya 1,000 guri waxay noqdeen kuwa aan la degi karin maba lagu noolaan karo maxaa jira dowladda hoosaa soo saartay warbixinta sababta maxay tahay gantaalihii iiraan ay la dhacday talaabiib 1,000 guri ayay dukum daakum ka dhigeen waa in dib loo dhisaa guriyaas 1,000 guri markaasay maxay yidhahdeen dhowr iyo 10 qofaa naga dhimatay dheh sheeko waaliya meesha ka dhacda anida tuso wararkii ugu dambeeyay aljazeera waxay leedahay dowladda hoose magaalada talaabiib war ay soo saartay galabta waxay sheegtay 1,000 guri oo markaa ka mid ah guryaha la dego ee magaalada talaabiib inay noqdeen kuwa aan hadda la degi karin sababo la xiriira sawaariiqda iiraan ay halkaa ku garaacday telefishinka 12 la leeyahay Israa'iil ay leedahay ayaa soo xigtay madaxa dowladda hoose magaalada talaabiib isagoo sheegay arinkaasu inay taagan tahay 1,000 guri ay dhibaataysan yihiin hawshaasu iyaduna halkaas ay taagantay dagaal kale haddii hadda la isku laabto 1,000 kale waa tegay iyo dhowr 1,000 oo kale waa talaabiib kaliya waa inta ay sheegteen waliya lagu leeyahay 1,000 guri ayaga la sheegay haddii aan rabo 5,000 la cunay guriyo baxay nimankan waa la yaqaanaa waxa xaqiiq kama sheegaana lagu leeyahay marka hawshaasu halkaas ay kaga gudbaynaa sheekada kale maanta dhacday waxay tahay askari faransiis oo ka mid ah ciidanka qaramada midoobay ee Lubnaan jooga ayaa dhintay kadib markii kooxaha hubaysan ciidankaas ay maaljida u galeen isla markiiba madaxtooyada faransiiska waxay ku eedeysay xisbullah waxay annagu shaqo ku mali ciidamada UNIFIL la leeyahay ee UN-ka ee meesha nabad ilaalinta u jooga annagu wax badan ku ridna male ciidankii Lubnaan iyaguna waxay leeyihiin waa baarayna arikan xisbullah waxay leedahay iska soo hubiya niman waxaa jooga meeshan ciidankan horay u yiri ha ka guuraan meesha oo u hanjabi jiray yaa waa Israa'iil dhowr jeer hore ku eedeysay nimankan inay meesha isaga tagaan xadgudubyo badan oo ay sheegeen xataa in Israa'iil ku sameeyayso laakiin waxay yiraahdeen xisbullah waxaan la yaabanahay madaxweynaha faransiiska si uu la soo degdegay xisbullah annagu naga adag yeedeen markuu nagu eedayna annaga shaqo ku milinadeen arrinka hal iska baaro haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray faransiisku waxay ku eedeeyeen xisbullah in markaa dilka mid ka mid ah askartooda UNIFIL ka tirsanaa xisbigana waxay yiraahdeen way beeniyeen arrinkaas annagu wax shaqo ku leenahay ma la yiraahdeen arrinkaadikeedii taala qaybtan aalaaba waxaynu ku soo qaadanaa akhbaaraadka iyo wararka soo kordhay wixii ugu waaweynaa haddaba marka akhbaaraadkan soo kordhay intaynu ku jirnay waxaa ka mid ah ninka Trump ayaa waxaa leeyahay kulan degdeg ah ayuu mas'uuliyiinta Mareykanka isugu yeeray si ay uga arisadaan arinta ku saabsan baalkii Hormuz marin biyoodka Hormuz Iran waa xiranay ninka xisaab dhiibin ma gudbay maxaa marka ay sameey karaan Trump iyo kooxdiisa hadday shirgalayaan marka waxay soo saaraan ayaa la arkayaa halkan ku qoran Israa'iilna waxay sheegtay inay sii wadi doonto weerarada koonfurta Lubnaan ay ku hayso inkastoo xabad joojin la gaaray nimanka xabad joojin maba qoraanba dhanka kalena waxaa la sheegayaa 6 muhaajiriin ah
ayaa iyaguna dhintay oo dad oo tahriibayaal ahaa markii ay la gadoontay doonidii ay wateen xeebaha Tobruk la yiraahdo ee Liibiya. qodobadaas ayaa soo kordhay wararkii caawa inta aan mar kale kulmayno like garay oo share garay barnaamijka meel kasta oo aad joogtaan waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.